Halkani waa GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaa si rasmi ah oo u socda shirweynaha taariikhiga ah ee wada-tashiga qaran. Waxaa magaalada Addis Ababa xarunta cusub ee shirka ka bilowday shirweynihii taariikhiga ah ee wada-hadalka qaran, kaasi oo muddo dheer si weyn loo sugayo oo isla markaana isu keenaya Itoobiyaanka ka kala yimid dhammaan gobollada dalka si ay uga wada hadlaan arrimaha qaranka. Shirkan wada-hadalka qaran oo Itoobiya markii ugu horreeyay taariikhdeeda ee qabanayso waxaa lagu tilmaamay war farxad leh oo muhiim u ah jiilka maanta iyo jiilka soo socdaba. Sidoo kale shirkan waxaa loo arkaa inuu yahay hannaan muhiim u ah oo lagu dhisayo qaran ku salaysan is-afgarad, shacabka iyo aragtida wadaaga, laguna xaqiijinayo in dalka lagu dhisayo heshiis iyo isfaham. Shirkan waxaa ka soo qayb galaya 4,000 oo ergo ah ka kala yimid dhammaan deegaanada Itoobiya. Wasiirka Wasaaradda Nabadda Mudane Mohamed Idriis ayaa sheegay in Itoobiyaanku isku yimaadeen si ay uga wada hadlaan ugana tashadaan Itoobiya iyagoo adeegsanaya wada-hadal ilbaxnimo iyo wada-hadal nabdeed ay muujinayaan xadaarnimadooda iyo aragtidooda fog. Fariintaasi wasiirku wuxuu ku sheegay in Itoobiyaan ay yihiin tusaale ilbaxnimo, astaan midnimo, iftiin xorriyadda, hormuud u ah xadaaradda iyo barwaaqo dhinacyo badan leh. Sidaa darteed wuxuu sheegay in ay tahay guul weyn aan la ilaawi karin oo jiilka hadda jira ay ka faa'iidaystaan fursaddan si ay uga wada hadlaan oo ay xalliyaan khilaafaadkooda iyagoo adeegsanaya wada-hadal ilbaxnimo iyo wada-hadal nabdeed. Wuxuuna muujiyay inuu aaminsan yahay geedi socodka wada-tashiga, isagoo sheegay in hadda diiradda la saarayo xallinta arrimaha soo ifbaxay. Sidoo kale taariikhda noqday caqabado hortaagan midnimadeena iyo nabadda waarta. Itoobiyaanka inay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan arrimaha Itoobiya iyada oo la marayo wada-hadal ilbaxnimo iyo wada-hadal nabdeed waxay muujinaysaa biseylka aragtidooda fog iyo sidoo kale jiritaanka Itoobiya iyo mustaqbalkeeda ifaya. Wasiirka Nabadda ayaa sidoo kale gudbiyay rajadiisa ugu wanaagsan ee guusha wada-tashiga qaranka. Dr. Aragawi Barhi ayaa sheegay kooxda TPLF ee sharci darrada ah in ay sii ahaanayso isha dhibaatada ah iyo murugada dadka Tigray. Kooxda TPLF ee sharci darrada ah ayaa sii ahaanaysa isha dhibaatada iyo murugada dadka Tigray, iyagoo si isdaba joog ah u diidaya ikhtiyaarka nabadda, ayuu yiri Dr. Aragawi Barhi. Gudoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiyadda Tigray TDP Aragawi Barhi ayaa ka hadlay xaaladda hadda ka jirta deegaankaasi Tigray. Wuxuuna sheegay kooxda TPLF ee sharci darrada ah inay tahay kooxo dambiilayaal ah oo leh mowqif adag, isku dayaya in ay xalliyaan dhibaatooyinka qoryaha tan iyo markii la aasaasay. Wuxuuna sharaxay in heshiiska nabadda ah ee lagu saxiixay Pretoria ee caqabad ku noqdeen hirgelintiisa si saxda ah. Wuxuuna sidoo kale tilmaamay in iyadoo la xirayo xulashooyinka siyaasadeed ee nabadda ah iyo saameynta isbahaysiga aan sax ahayn lala sameynayo ururka shacbiyada, isla markaana maamulka ku-meelgaarka ah ee deegaanka lagu riday xoog iyo afgembi. Wuxuuna sheegay in iyagoo hor istaagaya gargaarka uu heshiiska nabadeed ee Pretoria u keenay dadka Tigray. Kooxdu waxay si dhab ah u caddeysteen in ay tahay cadowga nabadda iyo ilo dhibaato ee dadka Tigray. Dadka Tigray waxaa la kulmay cadaadis, saboolnimo aad u daran iyo walwal oohinta iyo dhibaatada waalidiinta ayaa sii kordhaysa maalinba maalin ka dambeysa.
wuxuuna sidoo kale xusay in kooxda la mamnuucay ay ka xadgudbayso dadka iyaga oo dejinaya sharciyo aan sal lahayn oo ciqaab ah shakhsiyaad aan aqbalin dariiqadooda burburka ah iyaga oo lagu xirayo xabsi u dhaxeeya 5 ilaa 25 sano. Waxaa sidoo kale uu sharaxay kooxda oo la aasaasay iyada oo lala kaashanayo xoogagga xagjirka ah ee ka soo jeeda shacbiya iyo deegaanka Amxaarada oo loo yeero Timdo ay tahay shirqool xun oo lagu burburinayo dadka Tigray. Waxaa sidoo kale sheegay in ay afduubayaan dhalinyarada Tigray iyo carruurta qoyskooda oo ay geenayaan xeryaha militari oo ay ka iibinayaan shacbiya iyo Suudaan si ay u noqdaan ilo dhaqaale. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu xusay in dhalinyarada, hooyooyinka iyo dhammaan dadka deegaanka Tigray ay si cad uga hor istaagaan wadada burburka ah ee kooxdan. Maxkamadda sare ee dambiyada dalka Turkiga ayaa soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo xidhayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu galay dambiyo ka dhan aadamaha. Waxayna maxkamadda Turkiga codsi u dirtay booliska caalamiga ah ee Interpol si loogu caawiyo soo qabashada Netanyahu, waxayna tani daba socotaa dacwada uu Turkigu furay oo la xidhiidha faragelintii uu Netanyahu ka sameeyay maraakiibtii flotilla oo doonayay in ay jebiyaan go'doominta marinka Gaza bishii Oktoobar 2025. Maraakiibtaasi oo ciidanka Israa'iil ay kaga hortageen kana afduubeen biyaha caalamiga ah.